wuxuu arkay iyada oo ay nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee daba joogto daruur ka ilaalinayso qorraxda. mar kale ayuu arkay geed u liicaya si uu hoos ugu noqdo. ninkan ayaa garowsaday in inankan yar uu noqon doono nebigii kutubtooda lagu sheegay. adeerkiis ayuu uga digay inuu safarka sii wado, haddii kalena ay yahuuddu dilayaan. waa dagaalkii ugu horeeyey ee uu nebigu ka qayb qaato islaamka ka hor. waa xalqadeenna afraad ee siirada nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, oo aynu ku dul istaagi doonno sida ay ahayd dhallinyarnimadii nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, iyo sidoo kaleba dagaalkii ugu horeeyey ee uu ka qayb galo. ma jeceshahay inaad baratid xirfad cusub? ka waran haddii aan ku dhaho qiimihii aad hal xirfad ku baran lahayd waxaad ku baran kartaa 13 xirfadood inta lagu jiro bisha Ramadaan. waxaan qiimo dhimis 80% ah ku sameynay dhammaan koorsooyinkeenna, adiga oo 13 koorso oo ku jira website-keenna ku wada iibsan kara hal qiime oo ah $34, halka qiimahoodii hore uu ahaa $159. intaasi oo keliya maahan, balse sidoo kale jimce kasta inta lagu jiro bisha Ramadaan mid ka mid ah ardayda ka faa'iidaysatay qiimo dhimistan ayaa ku guulaysan doona kombiyuutar. iska diiwaan geli hadda WhatsApp lambarka ka muuqda shaashadda, sidoo kalena aad ka heli kartid kommentiga ugu horeeya. kadib markii ay geeriyootay nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, hooyadiis Aamina bintu Wahab waxaa kafala qaaday awoowihiis Cabdimudallib. xilligan da'diisu waxay ahayd 6 sano. sidoo kale waxaa la socotay nebiga xilligan saxaabiyadii la oran jiray Baraka Ayman oo ahayd korisadii soo korisay nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Cabdimudallib wuxuu ka mid ahaa odayaashii maqaamka sare ku dhex lahaa Quraysh, wuxuuna gole ku lahaa Kacbada oo ma jirin cid ku dhiiratay inay kursigiisa fadhiisato. heer uu ka gaaray qadarin aad ayuu u jeclaa nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, wuxuuna u kaxaysan jiray meel kasta oo uu aadayo, ha noqoto golihiisa, xitaa marka uu ku dawaafayo Kacbada iyo marka uu golayaasha kale joogo. Cabdimudallib wax badan kama dambayn Aamina bintu Wahab oo isaguna wuxuu geeriyooday 2 sano uun kadib. xilligan uu geeriyoonayay Cabdimudallib, nebigu naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu jiray 8 sano. geerida awoowihiis aad ayuu uga naxay oo uu uga murugooday. ka hor inta uusan dhiman wuxuu u dardaarmay wiilkiisii Abu Daalib inuu kafaalo qaado nebiga. Abu Daalib ayay sidaas ugu wareegtay kafaaladii nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Abu Daalib ma haysan hanti badan oo kuma jirin maalqabeennadii Maka, laakiin wuxuu ka mid ahaa dadka la qadariyo ee golayaashii Maka maqaamka sare ku lahaa. saboolnimada waxaa u dheereed inuu lahaa carruur badan. nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa u guuray guriga adeerkiis Abu Daalib, wuxuuna ugu noolaa sida mid ka mid ah carruurtiisa. sidii Cabdimudallib oo kale, Abu Daalib aad ayuu u jeclaa nebiga oo xitaa waxaaba lagu qiyaasaa inuu ka jeclaa carruurtiisa. marmarka qaybtood ma seexan jirin ilaa uu agtiisa ka soo seexdo. wuxuu nebigu ku noolaa guriga Abu Daalib ilaa uu dhallinyaro ka noqday oo uu ka guursaday Khadiija, barbaarisadii nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee aynu soo sheegnay in la dhihi jiray Baraka Ayman, oo ka sheekeynaysay isbeddelka ku yimid guriga Abu Daalib kadib markii uu yimid nebigu naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, ayaa tiri markii cuntada la keeno carruurta Abu Daalib si degdeg ah ayay u cuni jireen, iyagoo u tartamaya in midba uu kan kale ka hor dhammaysto intaysan dhammaan. maadaama cuntadu ay yarayd, tiradooduna ay badnayd, mana dhargi jirin oo cuntadu kuma filnaan jirin. xitaa caanaha ay cabbayaan wuxuu ahaa mid aad u yar oo aan ku wada filnaan. oo marka laga yimaado in Abu Daalib uusan dhaqaale badan haysan, haddana sidoo kale wuxuu ahaa mid hantida yar ee uu haysto badankeed ku bixiya u adeegidda dadkii u soo xaj tagi jiray Maka. oo sidaynu ognahay xilligii jaahiliyada xajku wuu jiray oo carabtu waxay isaga imaan jireen daafaha jasiiradda Carbeed si ay Kacbada ugu xajiyaan. reer Banu Haashim oo uu Abu Daalib ka mid ahaa odayaasheedana waxay mas'uul ka ahayd inay waraabiso, sidoo kalena ay cunto siiso dadka xujayda ah. sidaas awgeed ayuu Abu Daalib badi hantidiisa ku bixin jiray ka qayb qaadashada martisoorka xujayda.
waxaa dhacday in markii nebi maxamed naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee uu yimid guriga abudaalib ay wax kasta isbedeleen. waxaa dhacday in cuntadii ay u barakowday, caanihiina ku filnaaday. abudaalib oo arrintan u fiirsaday ayaa arkay in barako xaddhaaf ah ay gurigiisa ku habsatay. maalintii uu yimid maxamed wuxuu bilaabay inuu carruurtiisa u diido inay cuntada bilaabaan iyada oo uusan nebi maxamed cuntada hor bilaabin. haddii uusan la cunaynna uu diidi jiray inay cunaan, oo wuxuu rabay in marka nebi maxamed naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee uu bilaabo cunidda cuntada ay carruurtuna bilaabaan si cuntada ugu barakowdo. sidoo kale caanaha ayuu ugu horraysiin jiray, markaas ayay cuntada iyo caanuhuba ku filnaan jireen. abudaalib ayaa ku celcelin jiray, maxamed waa inaan barakaysan oo ay barakadu la socoto. carruurta kale subaxii waxay soo kici jireen iyaga oo timahooda iyo wejigooduba duduuban yahay, sida innagoo dhanba inagu dhacda, oo qofku marka uu soo kaco lagama yaabo inuu soo kaco isagoo nadiif ah. halka koriisadii nebiga naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee ee baraka ummu ayman ay tiri, wuxuu soo toosi jiray nebigu naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee isagoo nadiif ah, wejigiisu dhalaalayo, indhihiisuna qurxoon yihiin. waxay raacisay weligay ma arkin intii uu yaraa isagoo ka cabanaya gaajo ama haraad. nebigu naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee xilligan wuxuu ka shaqayn jiray ari raacid oo magaalada maka dadkii degganaa ayuu ariga u raaci jiray. kadib markii uu dhallinyaro noqday, adeerkiis abudaalib ayaa u kaxaysan jiray safarradiisii ganacsi ee shaam. waxaa dhacday in mid ka mid ah safarradan ay la kulmeen nin ka mid ahaa baadiriyayaashii kiristanka oo joogay magaalada busra oo la odhan jiray buxayra. ninkan ayaa ku martiqaaday deegaankiisii. waxaa dhacday inuu ku arkay nebiga naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee calaamado la yaab leh. mar wuxuu arkay iyada oo ay nebiga daba joogto daruur ka ilaalinaysa qorraxda. sidoo kale mar kale ayuu arkay nebiga naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee oo geed hoos jiifsanaya, kadibna geedku uu isku qalloocinayo dhankii uu nebigu ka xigay si uu hoos ugu sameeyo. buxayra oo ahaa baadari aad u yaqaan kutubta samaawiga ah ayaa ka dalbaday nebiga inuu dhabarkiisa tuso si uu calaamad uga eego. wuu eegay, markan ayuuna garowsaday in shakigiisu uu run yahay, oo wuxuu ku arkay qaybta dambe ee dhabarka nebiga calaamad u eg sida shaabad oo kale oo ay ku qoran tahay khaatimul ambiyaa. waana mid ka mid ah calaamadihii nebiga sallallahu calayhi wasallam uu la gaarka ahaa. buxayra ayaa u yeeray abudaalib, markaasi ayuu ku yidhi, inankani waa nebigii alleh, waxaana loo soo diri doonaa si uu naxariis ugu noqdo adduunka oo dhan. wuxuu raaciyey hadalkiisa digniin uu uga digay abudaalib inuu safarkiisa sii wado nebi maxamed, isagoo u sheegay in haddii yahuudda joogta shaam ay ogaadaan waxan uu ogaaday, sidoo kalena calaamadahan ay arkaan ay dhibaato u geysan doonaan. oo yahuuddu iyaguna way ogaayeen inuu nebi soo bixi doono dhammaadka adduunka, calaamadihiisana way yaqaaneen, laakiin waxay u haysteen inuu iyaga ka soo bixi doono. sidoo kalena waxay bacaan ku yihiin inay dilaan nebiyada. kadib hadalkan, abudaalib ayaa amray in la celiyo nebi maxamed naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee oo uu maka ku noqdo. xilligan nebigu wuxuu jiray 12 sano. waxaa la ogeysiinayaa bulshaweynta Soomaaliyeed ciddii u baahan in waalidkood looga soo gudo acmaasha cimrada inta lagu jiro bisha fadliga badan ee Ramadaanka, in hawshaas ay u qabanayaan culimo ku sugan magaalada Makka oo aqoon u leh axkaamta xajka iyo cimrada. sidoo kale si toos ah ayay kula socodsiinayaan intay hawsha cimrada ku jiraan, muuqaalana way kaaga soo duubayaan. haddaba wixii faahfaahin ah kala xidhiidh WhatsApp lambarkan ka muuqda shaashadda. 3 sano kadib dhacdadan waxaa dhacay dagaalkii lagu magacdaray Xarbul Fujaar ama dagaalkii Fujaar, oo ahaa dagaalkii ugu horeeyey ee uu nebigu naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee si aan toos ahayn uu uga qayb qaato. dagaalkan ayaa dhacay bil ka mid ah 4 bilood ee ay carabtu xurmayn jireen, oo ahaa isla bilaha islaamkuba uu xurmadda u yeelay ee kala ah dulqacda, dulxij, muxaram iyo rajab. bilahan carabta agtooda waxaa mamnuuc ka ahaa dagaalka, maadaama uu dagaalkani dhacay bilahan dhexdoodana waxaa loogu magacdaray Fijaar oo noqonaysa dagaalkii xadgudubka, oo waxay u jeedaan waxa lagu xadgudbay xurmadii bilahan. haddaba inteenan sii wadin dagaalkan aynu midacsanno sababtii keentay.
waxaa dhacday in boqor la oran jiray Nimcaan binu Mundir oo ahaa boqorkii Xiira uu soo diray raxan ama safar ganacsi ah oo ay ilaalinayeen rag ka tirsanaa qabiil la yidhaahdo Banu Caamir. waxaa dhacday in nin ka soo jeeday qabiilkii la oran jiray Kinaana uu dilay ninkii hogaaminayay safarkan, taasi oo keentay in Nucmaan uu xanaaqo iclaamiyana dagaalkan ayaa loo kala jabay laba dhinac ay hogaaminayaan qabiilkii Hawazaan iyo gaashaanbuurtiisii, iyo dhinaca kale oo ahaa Quraysh iyo xulafadoodii Kinaana. dagaalku ma dhicin hal mar, balse wuxuu ahaa taxane socday 4 sano oo mar ayuu qarxi jiray kadibna xaalku degi jiray. haddana sida loo joogo ayaa mar kale seefaha la isku qaadan jiray, wuxuuna ka dhacay khasaaraha ugu badan ee dagaalku suuqyadii caanka ahaa sida suuqii la oran jiray Cukaad. xilligan uu dhacayay dagaalku, Nebi Maxamed naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu ahaa wiil da'yar ah, si toos ah ugama qaybgelin dagaalkan, balse sida la wariyey wuxuu Quraysh ka caawinayay ururinta fallaaraha iyo u dhiibistooda askartii dagaalamaysay. dagaalkan ayaa ku soo idlaaday heshiis nabadeed oo ay labada dhinac wada gaareen kadib 4 sano oo rag badan la iska laayay, dhinacna aysan guushu raacin. intaas ayaynu ku soo gunaanadeennaa muuqaalkeenna maanta. haddii uu ku qanciyey, ha ilaawin inaad like inoo saartid lana wadaagtid asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo haweenta nagu xiran. mahadsanidin.